إن فيلم للسماية فعل أهان ويأذكتهاي balse filim sameeye Faisal Bile iyo kooxdiisa filimka cusub ee Dambi Baaris ayaa ka dhabeeyay rumaynta riyadooda ahayd filim sameynta. horta waani salaamay ku soo dhawaada xarunta ciidanka Dambi Baarista run ahaantii dalkeena waxa uu leeyahay kheyraad aad u fara badan waxaana jira dawladda filimka Dambi Baaris waa filim soo baxay sanadkan 2020 kaas oo ka hadlaya koox burcad ah oo ay ciidamada Dambi Baaristu baarayaan ugu dambeynna uu asgari kaga dhimanayo waxaadna marka aad daawato dareemi doontaa in Soomaalidu si toos ah ula jaan qaadayso dunida inteeda kale dhanka filim jelista inaan film director ka noqdo ama filim qoro waxay ugu dhalatay 2015 Faisal Bile waa maskaxdii ay ka soo maaxatay filimka Dambi Baaris waxaana aan weydiiyay muhiimadda ay leedahay in filim la sameeyo iyo waqtiga uu ku qaatay sameynta filimkooda cusub ee Dambi Baaris horta markii aad film sameynayso sida caadigeed adduunka ama filimada loo sameeyo waxa ku bax qarash aad u fara badan hadii ahaan leed dabcan jileenka positionada la tagaayo waxyaabo loo baahan yahay qarash badan baa ku baxay duubistiis waxay qaadatay adiga bil iyo bar 2 bilood laakiin bar waxa qaadatay inaad xulatid jilayaashii sababtoo ah dabcan dadka xaq aan ku xilin dhamaan filimka soo muuqday waa dadka sida hadda ku sheegay kale aan isku maanan shaqada filimka aan ku kala tageynay Khalid waxa uu filimka ku lahaa doorka laadarka wuxuuna ka sheekaynayaa caqabadihii la soo gudboonaaday xilligii filim jelista iyo waxyaabihii aanay kaamiradu duubin balse iyaga ku dhacay doorka laadarnimada waa door aan mar walba jeclahay filimkan filmaanta caadiga hindida markay dhalinyarada filmaan wal daawadaan marka aan film daawanaysani ani filimkan marka loo xaawo filimka soo baxay soo filimka dun jug ahayn oo waxa waay wax la qarbadeen muusan soo jeedin doorka laadarnimada waxa waay ana doorto inta badan waxa waay أنا بحاول هبيجي هنا سميه والله بحاول فيلمك نيجاتيف مركز جري صو وحياب عن أديك هن شيء دقنا أنت أسمين الصا يو دبيعض ضحين هن مركز تصنع حب أنت جيلينك ما دام وح جري صو حب أنت وحن هن إلى النقط مركز خارج مركز واحد تالنتي أديك الله إذا إنا صو صارتو تصنع حد وحاول وحني إيجاره إذا كسيدا دونتان إيجراع بس لقى ياو إن تكبد بتاعك عن تدولد وريا وليجي مارك نينكا أدك هدا أيام وعيا تلياها سي أو فيلاش نايقة دبنا وسعلي نفتا يجو يسميه مهليسان عدين أموس waxa uu ahaa asgari daacad ah oo dalkiisa u dhintay inta filimku socday wuxuuna ahaa filimkiisii ugu horeeyay ee uu jilay Sayid Cali iyo saaxiibkiisa Nuur oo kamid ah jilayaasha filimkan ayaa weydiiyay doorka ay ku lahaayeen filimka iyo sida filimkiisii ugu horeeyay ee Sayid Cali uu qaybta kaga qaatay filimku markii ay daawadeen reactionkii koowaad ee iga bixiyay wuxuu ahaa warniyo munoosha message badan ay soo dhacay marka daawadayaasha filimka waxa uu sheegay horta wax markaa sameynaysid qaab jileen markay tahay iyo markay nolosha caadiga ay kala tahay way kala duwan tahay dhabaantii qaab jileenka markaa sameynayay qaybta aniga ka matalay oo ahayd qayb filimka uga baxaya ama dhimasho ah waxay ahayd horta qayb aad u cajiib ah أنا فيلم كي يقول ريوها أو يعني أكسر موضوع ساس تاني وحليدي غيبت فيلم كوقت كت أو قريب لمشينا كم مثله سدا مثلنا دب عندك ويكهلن دتك داود لما رأيك كيك بحين بوستي فوقها والله ورتي يعني قف عيد المركز جعلان سوي عرفتها صدق لي يعني قف عادي مركز جعلان عيد النسكننا صوت عقبات وحى كل سو قال كرو يبعث بنا marka laakiin wax waliba yani waxaad ku mari kartaa dadaalkaaga iyo markay fikrad yani markaas waxaan ku mutaa door aan shaqeyn oo positive ah marka yani taasina waxay mid aan aniga jeclaystay markaas oo yani doorka aan ka soo bixi kara ahayd marka laga soo tago dhalinyaradan sameysay filimkan iyo filimaan kale waxaa jira dhalinyar kale oo iyaguna qaarkood sameeya filimaanta kuwooda actionka ah ee xilligan dunida inta badan dadku daawadaan balse dadku waxay ku kala duwan yihiin soo saarista filimka iyo juhdiga la geliyo Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad SBC Muqdisho